gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan martida halkan iskugu imaatay iyo dhalinyarada waan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mar labaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waan ku faraxsanahay dhalinyarada saddexda gobol oo isku imaatay oo maanta meel ku wada shiraysa oo maanta fikrada isdhaafsanaysa oo isbaranaysa wax weyn bay noo tahay. aad iyo aad bay wax weyn noogu tahay. hore baan waxaan u sheegnay inuu shirkan ahaa shirki koobaad oo noocana oo Jubbaland la qabto, laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idamkiisa waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir markasta sanad kasta dhaca ilaahay idamkiisa insha Allah taala. waxaan anu ku dardaarmayaa waad isku imaateen waa isbarateen isbarashadu inaan inta ku ekaanin inaysan noqonin waabaan wasaaradda arrimaha bulshada ku shirnay waabaan halkaa iskugu tagnay kaliya inaysan noqonin ee ay noqoto wax midho dhala. Soomaaliya horta Soomaali weyn baa la dhihi jiray. taas Kamboon iyo taas Caseer bay intaa taxnayd. sharaf weyn bay lahayd, magac weyn bay lahayd, qiimo weyn bay caalamka ku lahayd. annaga haddana waxaan soo gaarnay ayadoo kala googooda, ayadoo gobol noqotay. hadda 4 gobol oon xarunta weyn ee xamar ku jirin yaa hadda shaqaynaya oo la leeyahay state fulan waqtigiisu qaadanaya. laakiin waxaan rabaa hadda Jubbaland waxay u baahan tahay in isku xidhanto. Jubbaland uma baahno qoys, Jubbaland uma baahno abtir kale. Jubbaland waxay u baahan tahay xoogagan oo iskaashada. anoo hadda markaan dhalinyarada saa u fiiriyo waxaan dhahaaba war intan yaa intuu hadda qoryasiiyo ku xoreeyay Jubbada Dhexe. marka waxaan dhalinyarada ku waaninayaa cudurka dilaaga ee cilmigaaga hormarinaynin, aqoontaada aan hormarinaynin, meel aan ka soo saaraynin waxaan ahay ree hebel baan ka seexay. wax hormara iyo wax barnaamij oo lagu gaaray ma jiro. wax cilmigaaga uu ku keeno ku shaqayn kartana ma jiro. waxaad ku shaqayn kartaa Soomaali weyn. haddaad Soomaali weyn weydana Jubbaland yaad ku shaqayn kartaa. mar haddii aad Soomaali weyn weyday inaad hesho Jubbaland oo xora oo ka dhex shaqaysato oo cilmiga iyo xirfadaad leedahay aad ku fushato. haddii kale adoo qaxootiya 25 sano hadda qofkii 10 jir ahaa oo 25 sano qaxootiga joogay muxuu sheegayaa qaxootiga uu ku dhameystay wixiisiba muxuu horta dheefiba hadda kadib inina aad ka xishootaan inina qaxooti damba noqon. xiriir hadda waa la soo xidhayaa meel kale oo la aado ma badda la geli xagee la geli meel kale oo la galma inaad ka xishoodin qaxoot maxaad uga xishoonaysaa waxaad iskaga ilaalin kartaan Jubbaland isku xidhan haddaad noqotaan oo idinku isku xidhantaan oo iska deysaan tuulo fulaan baan hay meel fulaan baan hay aniga reebel baan waxa fiicnaan lahayd abtirka hebel baan hay saddexdaa waxaan ka hayn in la masaxaba oo la yiraahdo bas ninkan waa hebel gobol hebel buu ka soo jeedaa khalaas waxaan kala looma baahnaa. ummadda way dhimatay hore nin walba wixii sibu la kulmay. waxaad u daba socoto ilaa ay u abtiriso meel Ilaahay sheegi karo ma wala haba wax faa'iido ku gaarsiina ma jiro. annagu waxaan soo ogaan inaan faa'iido lagu gaaraynin annaga reer fulaan baan hay faa'iido lagu ma gaariyo. waana Allah waa inaan faa'iido lagu gaarin. taa iska tirtira. ta kale waxaad qalbiga ku qabsataan inaad Jubbaland inaad qalbiga ku qabsataan. waxaad kale qalbiga ku qabsataan inaad isku dantiin oo dan ahaan aad isku xidhantaan. waad ogtihiin ninkii yaqaan uu yaqaan saaxiibka waxaad ka hesho inta badan walaalka iyo dad abtir isku imaataan ku abtir isku imaada qaaraan bay nafta kaaga qaadi waxa laga ma helaba qaaraan bay ku wax kale ku haddaad xanuunsatan way ka dhuumanba waa la hubaa
laakiin hadda saaxiib yeelato oo halkan ila jubbada dhexe gado inta saaxiib ku yeelato qof walba saaxiibkiisa inta uu horumarkiisu yahay horumarku waa saaxiibka wanaagsan ogaada saaxiib kasta ma aha waa mid ka wanaagsan marka waxaan leeyahay dhalinyarada waxa laga doonayaa koow in horta aqoontooda si fiican u dhisaan nin walba intuu joogo inuu aqoontiisana dhiso labo inay ogaadaan inay Jubbaland yihiin oo meel kale ku leexanayn saddex inay ogaadaan kan ba walaal u ah walaal kale ma jiro walaalkay aabaha iyo hooyada dhalay kuwa taqaan kaliya ma Jubbaland ba walaal kuwa Jubbaland ba ehel kuwa Jubbaland ba dal kuwa Jubbaland ba wixii kuwa hadii laga soo tago Soomaaliya ay noqotana Soomaali ba kuwa in marka sida lagu shaqeeyo oo isku imaashada maanta isku imaataan ay dhaliso inay suuragal noqoto in gadal la isku tago maalmaha qaarkood ay noqoto in Jubbada dhexe la isku tago maalmaha qaarkood ay noqoto in saal isku dhaxmaro amnigu soo noqonaya nabadana waa la gaaray nabadda waxay ku xidhan tahay intana nabad isla qaado intana hadda nabad isla qaadano oo qof kasta aan markaan la hadlayna nidhaahdo war nabadda qaado oo waxaan kale la iska celiyo barnaamijkeenu horumar buu gaaraya ta kale dhalinyarada horena waanu sheegnay dhalinyarada waa la dhabar hadii ayada qaloocato way qaloocatay geedka markuu yar yahay la toosiya markuu hadda xagga toos hagaagaya laakiin markuu weynaado waad goyn kartaa ma toosin kartaa idinka waxa la rabaa inaad hadda ku barbaartaan Soomaalinimo inaad ku barbaartaan Jubbalandnimo inaad ku barbaartaan inaad saaxiibatiin hadda saa ku toostaan waxaad noqonaysaan dad nin walba intuu cilmigu leeyahay uu waxtarayo aqligiisu uu waxtarayo horumarkiisuna uu waxtarayo bulshadana wax gaarsiin kara ehelkiisii asagana wax gaarsiin kara asagana uu horumarin karo waxa la rabaa marka barnaamijka inta loo soo safray ee Jubbada dhexe laga imaaday ee gadal laga imaaday ee gobolada iyo degmooyinkan laga imaaday inuu intan ku ekaanina uu noqdo barnaamij rasmiya oo uu ka soo baxo ururka dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa inaysan barnaamijkan inuu kor u socdo mooy inuu hoos u dhicin inuu kor u socdo mooy inuu hoos u dhicin oo barnaamijka kor loo qaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhawaynaa gudoomiyaha baarlamaanka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi